أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد وحسقيا البرق هلاع وحسقيا يخطف إنو الضفه أبصارهم عنده هذا إنو الضفه كلما أضاء مركو إفيو لهم إياه هلاع مركو إفيو الطريق الشتك مركو إفيو مشوا ويسعونيا فيه شتك لحديث كسعونيا وحير بيدقاقيا وإذا أظلم مركو مجديوب عليهم دشودنا قاموا ويستاقيا ولو شاء الله هدو الله دوني لهانا لذهب وقابلها بسمعهم مقل قوضة إيه وأبصارهم إنه ضبوا كقابلها إن الله على كل شيء قدير في أوله معناها مثل فيه هروب من السرية هلا عدعي الروب قوته وحقوا السيقيا إنه ضبوا معنى وحويان مركو إفتينكو حوق بدية إنهنا خاصة أي ضعيفين وتبردرية إنه روح إنها كقاضة وكضف إفتينكا أي معنى وحويان لقي عبا كلما أرق إنه ضعيفين إفتينكا كي ما دا يحبويانا إفتينكا قد حوق بدية هاي وحبويانا كلما أي تبردريين وكسي دريين معنا مركو وحا لقوضا يخطب أبصارهم دفتان كان إنها أي دفيا وحا لقوضا معناها قرابة سيبا إليهين أو يكون فكريا مروا الباء ومعناها وحويان مع باسمح إليهي قرآن كمحكم كيسا إنه جاء منافقين تعورات صودا موتيو بنان كسور لكو سيقيا تاسوا ميت قولنا وحي إليهين معه ما دام برقق الوسط وفسرون كسو شاقني إنه يهي براهين في حجة وحي وحنبارتيا وحال لقوضا يعني حجتك يا براهين تاسي سيده اي او استيميان اي او خوغ بديهين indhaha inay ka qaadaan bay wasagayaan macna oo macnaha waxa ay cadeyn u tahay barqiga iyo xujajkaasi sida ay u xoog badan yihiin oo u istiimayaan macna taasay cadeyn mar walba marka uu barqigaasi u istiimo hilaaca uu dilg yiraahdo oo waxooga ay jidka kala arkaan ilaa mugdi bay ku jiraan waxooga way dhaqaaqayaan markuu dam yiraahdana meeshii bay istaagayaan shak ma socon karaan maxaa laga wadaa waxa laga wadaa laba macno waa suurtagal oo mufasiriintu waa ku fasireen in laga wado yaani hadii ay soo dagaan aayaad waxyi haduu soo dago ayagu siday rabeen oo macnaha hawadoodii waafaqsan iyo siday rabeen haduu soo dago masaalixdooda iyo dana kuwooda iyaga u dana markaasi ay door bidayaan danba meesha ku jirta isleeyin haday soo dagaan quraankii iyo waxyigii iyo diintii waa raacaya waa daba galaya hadii waxyir kadib ay soo dagaan aayado siday doonayeen aan ka u hadlaynin oo ama ayagii ka hadlaya ama yaani waxa way takaaliif saaraya ama sidaas oo kale ka hadlaya haday yimaadaan shak waa istaagayaan dib bay marka dib u gurashay bilaabayaan ku dhaqankii marka diidayaan macna taas waa macno labaad waxa weeye in Mas'uud iyo Qataada iyo qolyada ba macna waxa weeye sheegaya oo waxa laga wadaa haddii adduunyada ay ku barwaaqoobaan oo caruurtu u badato oo xoolo helaan oo nabadgeliye helaan oo yaani barwaaqada hadday helaan islaamnimada dhexdeedana ay ku helaan islaamkii inay yara jeclaadaan baa laga yaabaa ay waxoogaa door bidaano waxoogaa ay dhex socdaan muslimiinta inay dhex socdaan baa laga yaabaa haddiise laakiin abaara ay dhacaan dhibaatooyin ay yimaadaan muslimiintii laga xoog bato ma ujeedaa gaaladu ay xoog bataan markaasa waxay bilaabayaan inay dib u gurtaan oo ay gaaladii u kacaan muslimiintii shalayta ay ku dhex jireen inay ka dhaxararaan markaasay bilaabayaan yaani waxa weeyaan wayda adlama calayhim qaamu macnahaasna waxa weeyaan macna isaguna saxiix yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hilaacu wuxuu sigayaa yakhtafu inuu dafo absaarahum indhahooda inuu dafo كلما أضاء مركز أو إيفيا لهم إيجا جدك مركو إيفيا مشوا ويسعونيا فيه لحديثة وحوقا بيت الله سنيا وإذا أظلم مركو مقديوب عليهم دشودنا أما مقديينا قاموا ويستاقيان وماشي ضعف مايان يعني وحويان وقلدنا السيال أول ولو شاء الله هدو ألا دوني لها لذهب ولتقي لها بسمعهم مقل قوضي وأبصارهم أرقوضة أيها الله قابلها سبحانه وتعالى وتهديد يقودي إلهي إنها يمقل كلامه وكقابلها أود من أوليه إن الله على كل شيء كسه قدير مثل أوله ربي سبحانه وتعالى